iyadoo ay aad u sii kordhayaan dalka loo adeegsado mindiyaha ee ka dhacaya gudaha magaalada London ayaa Asad Cabdullaahi Yarow oo ah wiil Soomaaliyeed oo ay da'diisu ahayd 25 jir lagu dilay magaalada London kaasoo noqonaya wiilkii ugu dambeeyay ee xalay abaare 11 habeenimo mindi lagu dilay xaafadda Camden sidoo kale waxaa dhaawac isla mindidaasi ah loo geystay wiil ay wada socdeen Asad oo lagu magacaabo Diini Khaliif Ashkir oo isagana da'diisuna loogu sheegay 26 jir kaasoo hadda dhaawiciisa lagula tacaalayo isbitaalka mar aanu booqanay goobtii dilkaasi uu ka dhacay xalay oo ay booliska xireen ayaa waxaanu kula kulannay haween Soomaaliyeed oo halkaasi isugu soo baxay waxaana ay noo sheegeen in wiilasha Soomaaliyeed mar walba la beegsado inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun waxa maanta meesha iskugu imaanay wiilal yaryar oo Soomaali oo meeshan lagu dilay askugu imaanay haddaan nahay baarantiga Soomaaliyeed oo degan degmooyinkaanayto Camden iyo Borough Camden iyo Islington marka waxa iskugu imaanay maalin Ilaahay keena caruurteena meeshan lagu laayaa dhibaatana haysata anaga aasad dumar ahaan haddaan nahay aan hooyooyin nahay marka xanuun aad u badan aan nahaaya oo aad aan uga xanuunsanay xalaa la dilay labada wiil meeshan lagu dilay midna waa dhaawac midna waa dhintay marka waxaan idin sheegayaa wiilasha waxay u baahan yihiin ilmuhu waxay u baahan yihiin in la seef gareeyo ma ahan Soomaaliyan inaan ku dhibaataysanna ilmahayga ay al-shabaab dhameynayaan hooyooyinka ay ooynayaan meesha aan cararka ku imaano isdhahnay wax ku badbaadsadana in maalin walba saana loogu dilayo waxaan kala rabaa ilmaha aabayaashood iyo wixii ehelka u ahaa oo ilmahan ay dhibaatada ka badbaadin lahaa nimankii waa joogan magaalada lacag bay shaqaysanayaan ilmihiina saasay nooga baabaayaan Yusuf Gareey Abduuba igan raal oo aad ay xanuun noogu haysa arintaas ay to ilmaha waxaan u baahanahay inaan as community ahaan aan isku tagno oo aan maaragtay aan wax ka qabano arintan hooyooyinkii naf iyo nolol kuma noola ilmihii naf iyo nolol kuma noola walwalaana dilay walaacaana dilay horta Soomaali habaara ku dhacay ee habaarka Ilaahay ducaha noogu bedelo aamin dhaha habaarka duca Allah noogu bedelo meel laga habaaran yahay ma naqaan rafaada jira wadankina waa lagu rafaadsan yahay oo wad aragteen waxa ka socdo halkan waa lagu dhibaataysan yahay habeen kasta hal cunug oo 20 jir la dilaa 16 jir la dilaa 17 jir la dilaa nafnigu ma jirto nololnigu ma jirto maskaxdii iyo korkiiba waa ka daalana hadda meesha tan aad arkaysaan teendada taala xalay waxa lagu dilay wiil yar oo 20 jir ah 20 ilaa 22 jir ah mid kale waa dhaawac waa critical ill isbitaal ku jira laba bari ka hor sida aad ka warqabtaan meesha ka dambeysana wiil baa lagu dilay meesha ka sii dambeysay gabar lagu dilay gurigeyga dhinaciisa 16 jir lagu dilay waxa calool xumo ah inaan maalin walba 20 jir iyo wixii ka yar aan maalin walba duugno wiilasheena aan meesha la nimid war gacmaha isqabsano war hal iscafiyo war hal walaaloobo war dhibaatada wada jir baa wax uga qabsan karnaay aan wada jirno war isu soo baxa ilaa maanta meeshaan aan taaganahay 12 maanta wax aan qaban karnana ma lahan ilaahay wa inna ilaahi raaji'uun waxa kale wax kale meesha dhahaya iska yar kullu wixii oo dhan gabdhaha yiraahday ilaahay dhibaatada naga qaado waa dhibaataysanahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh intii dhimata Allah u naxariisto inta dhimanna ilaahay dhaxda u shaha uga qabto sidoo kale waxaanu booqanay hooygii ay ka deganaayeen magaalada London qoyskii wiilkooda Asad Cabdullaahi xalay lagu dilay mindida inkastoo ay ka cudur daarteen in ay nala hadlaan waxa ay inoo ogolaadeen in ay nala wadaagaan muuqaalka wiilkooda la dilay waxaa nasiib wanaag isla hooyga aanu kula kulannay dhalinyaro ay saaxiibo ahaayeen Asad mar aanu wax ka weydiinay haddii ay og yihiin cidda ka dambeysay dilka Asad Cabdullaahi inkastoo ay sidoo kale ka cudur daarteen muuqaalkooda in aanu baahino waxa ay noo sheegeen in ay ka dambeeyeen dhalinyaro gangster madow ah booliska magaalada London ayaa sheegay in ay wali baaritaano ku wadaan cidii ka dambeysay faldambiyadiyadaasi ka dhacay xaafadda Camden guud ahaan sanadkan 2019 waxaa London oo kaliya lagu dilay dhalinyaro gaaraysa ilaa 103 qof oo badankoodu ay da'doodu u dhaxaysay 16 ilaa 25 jir marka tirada dhimashada ee sanadkan loo qaybiyo 9 bilood boqolkiiba waxay u dhigantaa in bishiiba 11.4 qof lagu dilo magaalada London Yusuf Gareey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London